كذي أسيها نسيب الله ولي waxaynu ku jiraa doodii aynu ka doodaynay aqalka iyo waxa la dhigo ama aqalka iyo gurgurkiisa aqalka iyo furayadiisa aqalka iyo duubashiyiisa aqalka iyo maacuunkiisa ama muleenkiisa ama magaanyadiisa magaadiisa هذا وري وين ودنا وأضياش كدودة يا مانتا دودين ومانتا وحين نقول وح كدودة يا نيكلا يراهدو في البرالة دا يرف قرشة لقوا وينه المدير عمل نور وسونا سوجي دينا يا أو سو سوجي دين تقوله مانتا جال يا دودين وحين نقول دونتا وقبنا وركانه اسمعي حيو وركو حتى وحبينا كسو بحايا واحد مودين إنه كتقني أيين دي منه كسو نقندونا ما أنت واحد نكون نقول إن أقل كيمية هي أقل كيمجال هو استحيال ويل كودا أما ملين كودا أما أنت واحد لقول عنه معون كلا يراهضه أيين وريب دحجراء ما أنت رأي إنه كهرية وحي حيرو محل لقى سمية إمي سي قيبات حيرو وقيب سنتها وحيرادو إمسا انتبا محال لغا سميا سيدي وحان كو رئيسينيا داهر أبقر شيء أو رقيري أحيراد بلدان أو كأنفرو هو عيبه أحمد هو معصن طاي حيرو حالي لهذا الشيء لغا قرر دستانا مركاسو كلا يهي جادر بلن marka shayga qaaliga ah galbeed buu ka yimaaday geed la yiraahdo garbi oo qorax yar yar leh oo si gooniyo u baxda oo gun weyn leh sida geedka la yiraahdo yaaq dircaankaas oo kala oo galbeed ka baxda yaa laga qoraa garbi baa la yiraahdaa xeeradana maqashay la yiraahdo xeera adari dhulka laga keenaa dhulkaas garbidu ku badan tahay dhulka ka kale ee Soomaalidan kuma yaalo galbeed buu jiraa dhulka cadowga inaga haysto markaas sida dhariga wanaagsani kolku qallalo haweenka sameeya farta ay sida ugu dhuftaan oo u danano oo kale iyo u dananta wax aan jabayno weeye wax qurux badan weeye شيء قالي ويه يدي مركان نوعية بدن ما وكلا كعدالو حيرو وحلي هذا حيرة بلاد هو حيرة صورته وين الضيافة الله يقوله كولا وكير يريه له حد ملك خاص بيوصاك عن إلى أتو أركتو مد يرقو قابض لي وحلو يقوله عروضو سيدا وكلا يريه تيسيدا كوا وضعوني كريني ولاقيني المحير mid wax loogu ridaabay madabeed hoosna ugu soo siman tahay taa diyaafada weyn lagu sameynayana way u sareysaa mid waxay leedahay afar rukun oo hoosta ah sifaalna waa la hoos dhigaa kii aanu markii hore soo maray oo la leeyahay cuntadu hadday ku daadato iyo guriga kale baabi'inin waa xeedho weyn oo aan gurigaba laga qaadin dhaax ومركه هره نكي xoolay uu samaystay inuu diyaafada uu ku bixiyo oo xiriyaha ka waaweyn oo rag tiro badan ayaa gala markaas dabadeed kolkay kuwaas subaga iyo caanaha iyo bariidka ama xaruurka lagu sameeyay ka fulaan in la egba markaa gali karto xiriyaha waaweyn ee diyaafada lagu bixiya waxa jirta xeedalayada xeeda sibidi oo inta aan jirin fujaanada tadibada ilooga yimi ahaayeen kuwa gabdhaha lagu raro ee muqmada lagu rido ee la afsaaro ee dabadeedna dhulka maxfalka ah waaweyn afka lagaga gooyo ee satiyaasha leh weeyaan iyaduna waa xeero qurux badan oo sida loo sameeyo fujaanada oo kale oo wax la yiraahdo sibidi xeeruhu iyaga oo badan oo sida aan ku sheegay taa weyn ee rukumaleyda ah taa yare qoobada iyo xeer sibidida
iyo noocyada u kala kaca yaa horta iyagu aanay lahayn meel xad oo ay ku go-aan ninkii jiray wuxuu yidhi rukumaley ee nimanka kale maagayey rukumaley waxaan xeedhadii ruuska uga buuxshay inay 4 rukun leedahay halkaa ku garo ama aan ilaha raayax uga dhigay sida tan roob laayey waxaan idhi nimankii cirshiga raari jiray raabsi ay gabayne kuwaasaan leeyahay maaragtay baridaha badan oo wada galay raabsi ay gabayne waad garanaysaa xeerada rukumada waxaan rukumaley waxaan xeedhadii ruuska uga buuxshay ruus waa bari ama aan ariga raayax uga dhigay sida tan roob laayey oo iska daadiyey farcar nimankii cishiga raari jiray raabsi ay gabayne ha cuneen waxaa soo dhan iska dhirti ay rukumaleyna buuxi arigana iska qalfii roob laayey taas ay u kaliftaan nimankaas waxay cunaan ooyay waaye nimankii daba cirshiga raarana waad garanaysaa waa reer laas faray halkaa weeye dabada xeedhadu sidaasaanay xadna u kala lahayn una tiro badan tahay intii aan fujaankan iyo waxaanu aanay jirinna iyo sixniga iyo waxaanu aanu jirinna qorigaa unbaa ka shaqayn jiray waddankeena maanta koobkan biyaha la darsanayaa ma jirin kalax buu ahaa haantu waxay ahayd ama qori ama haan haddee baxobay hooyadu toshay wax badan oo dhulkeenna aynu kaga manafacadsan jirnay oo haweenka iyo ragguba ka shaqayn jireen yaynu ku noolaan jirnay haddee bal anigu intaasaan ka gaadhay xeeladii aada su-aashay waxaan u wareegayaa fiqi buraale waa ragga xeeryaha magacyadooda yaqaan oo wuxuu u yaqaanaa baan moodayaa inuu kaa badin doonaan moodayaa daahirow sababtoo ah waa wadaad adigu intaad fardaha iyo meelaha kale geeraya ku mashquulsanayd isagu xeeradaas waa tiwalka lowri naga badiyaaye waxaan leenahay fiqi buraalow adoo fiqi ah maxaad xeerada qaybaheeda iyo intaa u qaybshay ninka la yidhaahdo daahir abqash maxaad ku dari intaas uu daahir yidhi wax badan ku dari maayo sababta oo ah laba eray baase ku kordhinaya xeedhada yar ee qoobadda la yidhaahdo halka waxaa laga yahdaa kurbin marka kurbintaasu waxay u gooni tahay dadka badiba bunka maxaa dad walba balbadgooniduu leeyahado culimada koonfureed ee ama la ducaysanayo waxaa loo keenaa kurbintaa oo bun lagu waxeeyey marka aashan la shiilo bunka oo la shiilo oo la hagaajiyo yaa lagu shubaa kurbinta ah markaasaa halkaas ay kula baxday kurbin waa kow saddexda kale waan la qabaa xeedha ballaadha iyo rukumale iyo xeedha sibidi waan la qabaa laakiin qoobad baad ku dartay laakiin waxaan ku daray kurbin baan ku daray qoobadi waa jirtay laakiin kurbin baan ku daray magac kale oo lagu dari doonaana waa jiraa laakiin waa iga maqan yahay magac kale isma jira annagu waxaanu ku darnaa xeeradayaa joogdheer ama joogdheer waa xeero sida afar rukunaydaas oo fadhiirto oo sidaa u dheero waa iyaduna waa xeer dayaafadeed ama xeer dayaafadeed ama joogdheer xeeradaa jooga dheer hun hajari quraanka ku jirta habari tirinaysa xeeradaa jooga dheer waroy hun hajari bay ku tiris geedaha kale ee laga qoro xeero badhaaldana sidaas caashan geedkaas garbida la yihahdo looga qoro galbeed xaggeedka kalena waxaa looga qoraa yoocada geedka yoocada la yihahdo yaa laga qoraa waa kow oo iyadaa kalaxa iyo xeer ballaadhaas labadaba leh mana jabto iyado yoocadu ma jabto caanka marka xeeryuhu reer miyigii badiba waa kuwa caynkaas oo rag qoro xeedha sibididaa anigu meelayna ka soo gashay garan maaye laakiin iyadoo la qoraayo anigu ma arkin xeedha sibididaa kana wanaagsan xeedyaha kale ka wanaagsan iyadu waa sabtayaashaasay leedahay oo sida daahirba u sheegay xitaa haddii wax lagu guro way ku dhididaa duxdu kama baxdo inta badan isku midaatihiin marka wax dheeraad aan ku daraya may jiraan
waxaan u wareegayaa dhinaca ka ninka dheeg weyne waan ka laabanaya waxbaan kusoo cali mudiir baan u wareegayaa oo raggii xeelada qori jiray ag joogi jiray oo ceelbuur ka yimi waa meeshii la oran jiray maxay ahayd waxaa lagu sameeyaa geedka la yidhaahdo yaaniin badani joogta bal cali mudiirow adiguna maxaad inkastaad na wadaag tahay oo aanad yaraysanayn horta waxyaalo badan waad iga badisaan qoladiinnan odayaalkan reer nugaaleedii reer bari laakiin xeerooyinkaana idinka badsho sababta waxaa weeye ducadiinuba waa yartaha idinka badarka iyo beeraha namaba tabcataan waxaad ku badisaan fardaha iyo geela iyo isdhaca iyo isdilka iyo waxyaalkaas cada laga keeni jira waa iga badisaan laakiin iyo badaha iyo kalluunka laakiin haddii la yidhaahdo magacyada xeeryaha iyo sida loo cuno iyo cuntada iyo kartida cuntada iyo cirka iyo cunto cuno ogaanta taas idinku shaqo kuma lihidina shan far oo calacali iyo waxaas xeerooyinku waa badan yihiin laakiin aniga nafsadayda inkasta ay badan yihiin maskaxdayda kuma wada jiraan laakiin rag aad u yaqaanaa jira laakiin waxaan ogahay una in adinka idinka dhaam dhinacaas horta xeerooyinku way badan yihiin waxa loo isticmaala waa badan yihiin marka ugu horeysa waxaa jirta mid la yidhaah gergerka waxaa weeye meesha oo ducada gergerka waa meesha laiskugu yimaado kulanka laiskugu yimaado lagu gardhigayo waa kulanka gerger waxaa weeye cidad badan dad badanaa tacdaarta weeye gerger waxaa weeye xeero weyn oo 3 nin 4 nin inay qaada maahane anna qaadi karin gerger baa la yidhaha soo karinaysa ciddaa gergeray soo karinaysaa oo waxaa loo soo saaraa awr maana dad ma qaado meel la yidhaahdo waxaa laiskugu yimaadaada daharo oo laiskugu tago iyo meel shirah oo qabiil dhan iskugu imaanayo wey waxaa la joogayaa 4 iyo 5 wiig baa la joogayaa ma qurmo ma halaabo waa la soo karinaa ratiyaa la soo saaraya caanaa la soo saaraya awrta meeshaasoo dhammaa lagu cunayaa reer waqooyigiinaas 10 nin intay cunto 1 nin baa cunaya halka beentay maantaas runtaa wey intaas aan lagu daro caliye waa runtiisa sidaa uu sheegay anigu waan ka qayb galay oo waxaan ka qayb galay meesha la yidhaahdo barafka cumar qombor meesha la yidhaahdo ceel baraf yaan kaga qayb galay markaas jawhar gadaashiisa sidaasa inta midhaa bil dhan waxaa la soo guriyey oo la soo guraayey oo geelii la keenay la qalaayay oo adhigii la keenay oo masagadii la keenay oo caanihii la keenay oo wax walba la keenay yaa markaa ugu dambaysa kaagi tilmaamo markaasaa war yaa reer hebel ka joogaay yaa heble ka joogaay yaa reerkaa ka jooga markaasa nin walba wuxuu yidhaha tilmaamanaya nin walba xubintiisa baasi yaa boqor ka jooga yaa islaw ka jooga yaa reer cidaarood ka jooga yaa shaydaanka waxaasaa la leeyahay markaasaa nin walba cadki xubinta uu leeyahay waa caano waa la siini waa xeere gergero waa yaaba gerger baa jira kur baa la yidhaahdaa qoob bay leedahay waa weyn tahay oo adiga dadka gaagaabanimada gaari karaan waxaa jira qur'aan qur'aanka isagana wax uu lagu duceysto weey magaca waa isku dhow yihiin waa qur'aan waa kun gerger aa la yidhaahdaa waxaa jira xeero dhalaan saad u sheegteen waa qoobinta waxaa jira seraf ayaa jirta waxaa jira muxuu ahaaye duraamo iyo gergerka iyo qur'aanka iyo waxaasoo dhan waa isku mid hase yeeshee habkay u qoran yihiin iyo weyninka marna يعني إسلح يردي وينيد وحال ليا وقرآن قرآن كوا وندعي وجرجر والدرام واسكو حال وحير النوع اللي بحيا الله ما عاوية وحي اللي بحيني مركز مر حاوي قرآن الأغسلا مر عقا قبيل كشرة أو شرب الوسمية مركب وحاوي بدر كاس لسوا كريو أو قبل كريت قانا أو كريسو مدي الوجوية أبلي الوجوية ما جوي ما وحكي لكم ما جوي كرو أنت مدي ما عيسى معاوية هذا بدر كوالا سوا كرينا هرتا بدر كهرتا والا سوا كرينا وأدقيها ما عيسى ما عيسى بدر كا
badarka waxaa la yidhaahdaa gargarka badarka gargar loo soo kariyey badar gargar weeye badar gargar weeye haa naa kari taqaanaa karinaysa bahalkaa weynaa lagu ridaa derin baa loo dhigayaa nadiifa saasaa loogu ridaa ayada nafsadeeda marka hore saliid subag bay leedahay badarka ku dhegi maayo waa la ridaa tooreeyaa lagu waxaynayaa inta la jeexjeexo ayaa muxuu ahaaye lagu ridayaa bacdayn raggu way cunayaan waa la saaraa haddana markay xoogaa cunaanba waa lagu daraa haya yaa loo saaraa hala leeyahay kanoo kaleeto a gacanta lagu qaadaya waa loogu darayaa caanaha waa loogu darayaa marka sida uu sheegaayo dhallinyarada waa meel garmadowda waa meel culummada waa meel culummada waxooda waa la dhadhaminaa cunto aan la soo dhadhamin culummo looma geeyo caanaha iyo cuntada waa special hilibkoodu waa special odayaalka iyo gobtu waa special dhallinyaraduna waa iska caadi bacdayn wiig dhan baa lagu cunayaa markii la dhameeyo cuntadaas wixii ka hara waa la qaadanayaa geeleydii magaciisa qaadanaya wiig hadduu yaallo mahalaabaayo waa uun dhagax caanaa lagu cunaa marka waxaa weeye mar waa masago si gaara loo kariyey marna diir weeye laakiin diirta sidaa adinka u maqasheen maaha diir budaa la yidhaahdaa waa ka gooni wayna ka macda hatan kaleeto oo masagada iyo digirtaa mac marka si fiican loo karsho digirtaa mac haddii se adiga lagu siiyo ma kala garanaysid waxaa jira mar digirta iyo laysku ayimo masagada ama gacato iyo diir laysku gocoso aad tiraahdaane laysku ayimo diir iyo gocoso laysku ayimo aa jira marka laysku ayimo waxaa ka macaanta badanna waad garanaysaa laakiin wuxuu yahay ma taqaani markay jiilaal tahay oo caanuhu badnayn subagaa lagu cunaa iyo maraq marka caana jiraanna maraqaa waxaa lagu cunaa caano ama geel amba ari waxaa weeye waan hubaa reer waqooyigiinaas 10 nin iyo 1 nin oo dadka ay sheegaya 1 nin baa cunto badan 1 nin baa cunto badan waxaa laga yaabaa marka been ma aha 2 saac inay fadhiyaan 2 saac oo la cunaayo waa lagu beretamayaa weliba waa lagu beretamayaa 2 saac wax waa la cunayaa qalaf intaa siisan adinku tagi leeyahay 2 saac gacantaasaa lagu cunayaa gacantiisaas mar intay qaado adee waa ku deeqdaa marka waxaa la yidhaahdaa 5 farooyo calaa la yidhaahdaa saasoo intuu yidhaahdo badarka oo inta ku rido meeshaanu saaraya inta kaleetana waa caano markaasuu siinaya ha nimankaas markay wax cunayaan ninkiiba wuxuu fadhinayaa ugu yaraan 2 saacadood wax cunaya badarkana waa lagu soo daraa caanahana waa lagu soo darayaa marka badarka kan cunidiisa iyo tabcidiisa iyo weelasha caynankeeda aniga de mogsoontaa waxaan iska ahay ha socotee ma aqaane raggii qiina ma jooge beer tabcideeda iyo cunto sida loo sameeyo iyo xeelooyinkeeda horta adinku ha ka hadlina laakiin wax kaloo aad ku fiican tihiin waa jira waa idin kaga baxa waa marka ugu horeeya horta cali waa u malaynaynay oo dhowr waxyo isku darsaday ayaynu ugu malaynaynay kow inuu xeerada iyo alaabteeda laga badinayo waa mara xeerada xarunta lagu sameeyo ama farsamayahaniinta Soomaaliyeed meesha ugu farsamayahaysan ayaa hadduusan ka iman aabihii ka yimi oo gurigooda sheekadu way taallaa waa kow waa ceelbuur waxaa lagu sameeyaa dabqaadka waxaa lagu sameeyaa burjukada waxaa lagu sameeyaa geedka la yidhahdo xeeryaha waxaa lagu sameeyaa girgiraha waxaa lagu sameeyaa waxaa Soomaali wada gaara oo dhan oo alaabtaa u badan oo dhan horta ceelbuur waa xarunta meel kale lagu sameeyaa way jiraan laakiin xarunteeda weeye marka halkaas inaan maqaanti waxaan ka nahay wax qorinta ama farshaxanimada ceelbuur haddii wax kaga horeeya oo Soomaaliya maanta magaalada kaga horeysa ma jirto waa kow anagu qolba anigu hadda reer bari ahay ama reer bariga metelayo waxaanu qaadanaa waan uga damaynaa waxay noogu sheegaan baanu qaadanaa magacay noogu sheegaan baanu idinka idiin soo gudbinaa ninka reer waqooyigiina anaga idiin soo gudbina wadoonya idinku keeno waxaa la yidhahdaa burjiko waxaa la yidhahdaa girgire waxaa la yidhahdaa waxaan idiin sheegnaa idinkuna siina jirtaan qoladiina geen jirtaan waa kow cibaadada meesha bay ku jirtaa waxaan u gudmaan haddii xeero laga hadlo waa in iyadana fandhaal laga hadlo fandhaal waa in laga hadlo fandhaal ku imisuu u qaybsamaa maxaa laga qoraa sidee loogu dhaqmaa
hawluhu qabtaa waa maxay waa fandhaal mar haddii xeero laga waxaan ku horaysiinayaa ninka la yaabo fiqi buraale fandhaal marka la yidhaahdo anigu saddex baan u aqaana fandhaal marka ugu horeysa waxaad ii qabataa ninka ugu weyn oo la yidhahdo bixiye ninkaa bixiye la yidhaahdo waa qori waxaana laga qoraa geed dhiro badan baa isaga laga qoraa hadduu bixiyaha yahay horta geedka aan kuu sheegayey ee la yidhaahdo yoocada waa laga qoraa waa ko hadduu yar yahayna waxaa laga qoraa himirta yaa laga qoraa inay himirta murmusquda ashaba markay arrintaa soo gabyaaye mihindisaysa inaad himirta murmudisaad mihindisaysa mooyaa ka baxay reerahaad magac wadaagteen ogaadeenna mayso ay ku soo muhoradiisii waa markuu caashaan gabagaas himirtu waa geedkaas midhano way leedahay oo waa la cunaa oo waxa weeye hawdkay badiba ku badantay xagga nugaaleed ma jirto ah wuxuuna quruxdiisana waad yaabaysaa oo uu dhalaalayaa oo isaga had iyo goor wax lamidii ma jira gas ma yeesho laakiin tan kale ee ma garanaysaa yoocadu gas bay yeelataa kalexdeeda iyo bixiyaheeduba waa kow markaynu kaasiba marka bixiyahaas waxa bixiye loo yidhi haanta la lulaayo ee subaga marka laga bixinaayo isagaa ka soo saara isagay haweenku kaga soo xaadiyaan oo burcadkay ku soo qaadaan markaas saasaa loo yidhi bixiye waa kow waxaa jira oo ku xiga mid la yihahdo dhure dhurahaasu had iyo isagu waa ka yar yahay isaga waana ka dhuwan yahay saasaana dabadiisu u dheer tahay afkiisuna waa ka yaryahay dhuraa la yihahdaa isaga ubooyinka ama baarooyinka iyo ama dhexdooda ku jiraa oo loo badaaya subaga marka laga soo qaadayo ila gacan la gelin maaye kaasaa subaga laga soo qaada subaga fadhee maakhalida ah oo dhuraa kaa la yihahda marka calashaan la shiilaayana waa lagu dhuraa badiba oo naagta haysata way ku dhurtaa oo saasaa dhura loo yidhi waxaa jira marka fandhaal sooreed fandhaal sooreedkaasi waa kaa yaraysan waa xarxardhana quruxda badan leh qaarna waxbaa lagu cunaa qaarna waaba iska yaalino marka rag aad ka xil aad kala mudanta inuu yimaado yaa wax loogu soo ridaa oo xeelada inta la kariyo bariidka oo la geedayo oo subagii lagu soo daro yaa afarta koone loo saara afarta dhinac loo saara hadday afar yihiin hadday laba yihiin hadday saddex yihiin hadba tiradoodu inta la egtaa xeeladaasna loo saara oo kaas isaga ruuxiisa waxaa laga qora u badan yahay geedkaan himirta la yihahdo yuu badan yahay fandhaal la aashaan la sameeyo oo wax lagu cuno oo quruxna leh wax ugu badan bahalkaas haddayan garbida ahayna galbeedka kaga timaada himirtaas ugu qurux badan marka fandhaalada anigu saddexda ah wixii kale dee lagu daraayana odayaasha waxaan ku wareejinayaa ninka la yidhaahdo oo adaa ku wareejinaya kusoo qaado waxaan oo dhan anigu intaan gaadhay anaa ka aqaani anigu haddan dhaga weynaa intaan ka aqaan baa sheegaya horta waxaa jira midaan kuwa ahayn oo odayaashu ka yarboodeen oo waxaa la yidhaha quddi quddahana waa kii ninku ka maahmaahay naagta qabsatee ay tirisho intii u tegay naagta magaalada war lacagta masi uu yidhi naa naga taga nagaba quddiya jeerina loogu dari jiray waa ka subaga la dare ee ragga subaga lagu siiyo kor buu u qoran yahdo wuxuu qaadaa in nin deeqda oo qaarna waa sakxiyaan qaarna kor baa sidii xeerada loo qoraa oo xeeradu sooma kala dheera isna saas ugu kala girgirdeen qorqoreenna kor bay uga qaadeen labadii dhinacna kor baa looga qaaday marka nin buu deeqaa oo meel weel bay u saaran intay subagaasi intaa ku rijaan oo markaas hilibka lagu siiya waa kaa ninku ku qaanabaya naagta markay qaananta leeyahy naa naga taga naga qudiya jeerina loogu dari jiray wejigaa gubay odagu leeyahy waa mid dhirtan laga qoro qabaalka iyo xeerada horta waa isku mid isku dhir baa laga qoraa qabaalku iyo xeerada meel baa laga wada qoraa iyo qudayaasha iyo waxa horta waxaa soo raaca geed la yidhaaho goosir oo isna hawdka ka baxa oo qabaalka laga qoro
iyo xeryaha waxba laga qoro goosay baa la yidhaha waa sal waaweyn waa geedka moqorka reer hawdka ku nool yihiin moqorka ka caba oo goosay baa geedkaa la yidhaha waxaa jira geed kale oo fandhaalada la saantay isna lagu qoro la yidhaho jawdheer waa geedkan marqaan iyo hawdkan iyo hareerihiisa ka baxa isna jawdheer baa la yidhaha qudayaasha iyo bixiyaha waaweyn horta waxay u badan yihiin jawdheerka waxaa jira waa geedka dhakalka geela lagu maalana laga qora qabaaladana waa laga qora geed kalaa jira wax laga qoro oo isna waxaa la yidhaahaa waa geedkan qararada oo qabaalada laga qoraa lagama qorto isaga wax kale yoocadana sida qaalibka ah fandhaal lagama qoro iyada dhakalka geela lagu maalayo aagaamaha haamaha la dhaansanayo waxaasaa laga qora laakiin fandhaalada lagama qoro oo gaskan maaragtay ay gas bay leedahay oo gaskaasaan laga goyn karin himirta jawdheerta geed la yidhaho ontoro waxaasaa laga qoraa goosayga waxaasaa laga qoraa bixiyayaasha iyo fandhaalada shillankana waa laga qoraa fandhaalada waa rintiisa cad quudkana waa laga qoraa dhirtaas oo dhan baa iyana laga qoraa oo u reeban waa kale leeyihin dhirta qorin geedka la yidhaahaa yoocadu iyo qararadu qabaalka iyo dhakalada iyo waxaasay u badan yihin waa geed nugeyl waxaa lagu raacaa geedka la yidhaho yoocada markuu jabo dhirta qaarna waa kala duulaa oo waa firdhaa qaarna waa dilaacaa marka naagahan reer baadiyo hamaha waa kabta weelka markuu ama qabaha noqdo ama qori ha noqdo duulaysaa ka bimayso ilaa yoocada iyo goosayga labadaasu sidii qabada iyo u kabmayaano intay afka isu saaraan yay tolayaano markaas intii ileeg haddana dib u dhaansanaya oo wax ugu maalaya intaa waxaanay nagu kama sheegayin waxaan ku wareejinayaa ninka la yidhaahdo cali mudiir maxaad ku daraysaa nimana fandhaalada wallaahi waa isku mid baan nahay waxba kuma korinaayo midka bixiyaha u taqaanaan anigu waxaan idhaahdaa qarsin marka qarsinku waa midka lagu bixiyo qarsin iyo bixiyuhuna waabay magaciiuba wataa laakiin qarsin aan u aqaana far baa jirta iyaduna fandhaal baa jira gure ayaa jira may hadda anu dhuro uma aqaan dhuro waxaan aqaana mid ceelka biyaha looga dhuro waa jiraa haddee namba sida u yaqaana dhuraha ceelku markuu biyo yareeyo midka weelka yaroo lagu dhuraan dhuro u aqaana laakiin midka cuntada lagu cuno dhuro uma aqaano marka hadda magacaas aan u aqaanan sheegaya qarsin waa midka badarka looga soo saaro weelka far midka ilmuhu yaryar ku cunaana la yidhaahdaa gure midka lagu wada cunaa la yidhahda kuwaxaasoo dhan dadkaa ku cuna waa runtiis faqrbadaale si u qurxan yahay iyo si u kala habsan yahay iyo akhyaarta wax loogu kala siiyaa kan badarka lagu ayimo annagu waxaan idhaahdaa ayime waxaan kaloo idhaahdaa laan iyo ayim aan idhaahdaa laan iyo ayim baan idhaahdaa kuwa lagu cunana sidaasaan u naqaanaa keliya waxaan ku kala duunsanahay ka lagu bixiye aad tirahdaan waxaan idhaahdaa qarsin inta kaleeta waa far waa fandhaal waa gure waa ayin waa laan isku midaan nahay intaasoo dhan waa isku midaan nahay horta anigu ninka la yidhahdo cali mudiir waxaan ku ayidayaa midka la yidhaahdo bixiyaha anana waxaanu dhahnaa qarsinka waan dhahnaa waxaaba jirta hebel qarsin qallooc baa ku dhacay qarsin qallooc ayaa ku dhacay ayaa marmar la yidhaahdaa waxaan kaleeto oo midka lagu oo sarbeeb waa hebel qarsin qallooc baa macnaha waxa yar kan loogu dhuray wax ama bixiyaha wax loogu soo bixiyey digsiga wax looga soo bixiyey ama dhayg wax looga soo bixiyey ayaa xumaa marka qarsin qallooc baa hebel ku dhacay ayay dhahaanin waxaan kaleeto oo aan anigu ku day lahaa mid cali mudiir oo uu sheegay wuxuu yidhi midka lagu ayimo ama midka lagu cajiimiyo ama midka lagu malaaqadiyo ama midka lagu walaaqo marka waxaa misna kaloo soo raaca kaa soorta lagu ayimo ama lagu malaaqadiyo ama lagu walaaqo magacyadaas macnahaas way isku dhow yihiin waxaan anagu mid mar baan waxaan ku daraya mid la yidhaha malaaqad waxaa kaleeto jira xurbin waa wada suka soo wadaaya waxaa ku jira xurbin ayaa jirta xurbin
malaakad iyo ayime isla markaa magaca fandaalka waa wataan magacii fandaalka oo sare way wataan waxaanu xurbiya malaakad waxa kaleeto jira mid kaleeto annagu aanu kala duunayn in allah waxaa turunjiga ninkaana garanaya waxa waaye dugsiga weyn oo baxrida iyo wax loogu kariyo waxaa oo dhan wax kama talaan waxa weeye mid intaa leego looxa oo balaato laabtay oo sida loogu walaaqayo wey xalaalayo yaalayo idiga qolooyinka indooyaha raaca yaqaanayo dugsiyada waaweyn waxaad arkaysaa wuxuu leeyahay oo naxaas oo weyn oo daahir baa iga dambayn doonaya qolkaan leeg marka waxa kan aynu malaakad iyo fandaal iyo ayime iyo xurbi waxaynu ku sheegin ma gaaraanba marka waxa waaye kaas turunji bay dhahaan doonyaha ruuxeeda waa loogu isticmaalayo waa lagu duwaayo marka magaciisa meel laga keena ma aqaane turunji iyo baasi iyo waxaasay dhahaan oo qolada doonyada yidhaha baasina waa dhahaan oo baasiga war baasaan kula dhacaya iyo baasiga kala baxay baasuu ila dhacay iyo baasiga ma taqaana waa kii lagu malaakadinayay ama lagu xirbinayay ama lagu ayimayay marka waxaan ku wareejinayaa oo kale isaguna magaalada ilmigaas isugu xiro ninka la yidhaahdo daahir afqarshe daahirow bal fandaalki malaakadki iyo fandaalki iyo ayimihii iyo wixii alaga aan tirinaynay iyo turunjigii iyo baasigii iyo wixii isku xidhxidhadna wixii waxba kama dhinna waa la wada sheegay haddii lagu wada noqdana waqtigu inaga qaadaya wax anigu aan aqaan oo dhiman oo aan la sheegin ma jiro raacsanahay dhirtase wax laga qoro haddaynu dib ugu noqonno markeeda horaa dhirta la kala wada yaqaanaado dhirtu waxay u qaybsan tahay geed dhuux leh iyo geed aan dhuux lahayn geed adag iyo geed quwaxan way u qaybsan tahay geed adag iyo geed quwaxan way u qaybsan tahay geed quwaxa waxba lagama qorto oo waa geedkii jilicsan ee markaad calaliso guntiisa aada goyso dheecaan macaan leh markaa dabadeed dhirta adag ee aan kuwa ahayn weeyaan horta dhirta wax laga qortaa dhuuxna aan lahayn markaa way badan yihiin dhirta markaa dabadeed ninka quraarka ah ayaa garanaya tiradooduna marba meesha uu joogo dhirta ka qormi karaysa ayuu garanaya sidaa loo sheegay haanta iyo kalaxa iyo kuwa caynkaasoo kala ah iyo ubada waxaa laga qoraa may ubada horta waa gooniye geedkan la yidhaahdo xagarka ubada waa laga qoraa waa geed quwaxaan markii hore reebay oo isaga waa laga qoraa ubaweysada kaasaa laga qoraa geed ay dinaan idinku halkan ka soo qaadin oo la yidhaahdo mooliga oo daloola oo gun weyn oo haamaha isagoo caanku ah mooli haan mooliya waa noqosa haan mooliya marka bari buu ka baxaa waa geedka maydha xadiiskuna xiggan aynu ka sheekaynayno oo kale oo dhuudhuuban weeyo waa la yar tiifaa markaas ama la calaliya ama la yar tubaa ramadan xariirta ah geedka maydha cajiinna male yaaqunbu egya markaasuu isagu dhuubayo wuxuu u baxaa mun samadaas isuu sareeraya markaasuu kii saaldheer may waxa midoonaha markaasuu markuu dusha u baxo ayuu sida dharkaynka ama xasaabinta dadku yaqaan weyn uu markaa madaxa u bixinaya waxaas ku soo geedkaas wuxuu u baxaa sida geedka la yidhaahdo cawbaarka yuu intuu sidaa u baxo iyo harweyn bixinayo agsagta waa cawbaar markaas caleemihii cawbaarka yaa laga samaysanaya xarkaha kan quruxda badan leh ahirow adigaa ku wata afka hadalkaas maalin dhaweyd geedaynu mura ku sheegayn oo iga degi waaye uu halkaygaa dhaaf waayo xataa aan ku noqday dad weydiiyo murahda aad ku sheegtay oo aniguna aan dinow ku sheegay waa mooli dinowgu waa mooli mooli haddaba ansaxno dinowgu waa mooli annaguna mooli waa dhahnaa anaa ilowsanaa
dinowga marahdu waa geed gooniya oo iyadu good gooniya waaye dinowga iyo mooligu isku mid maaha halkaasna waynu saxaynaa qolada digshineerkana waa inuu ogeysiinay waxay shabaha maalkan mooliga leeyahay oo daahir oo haddaan gartay sida maalka xaskusha maal waa wale inay saa u dhudhuubata dinow baan nahaa anagu maalka dhudhuubaya isagu malaha xajiino male wuxuuna ku leeyahay dhexduu ka baxa sida cawdu u baxa sida wax cawdu u baxa sida cawdu u baxa markaa dabadeed waa dinow labadii geedaa doonaysa in la saxo geedka mooliga la yidhaahdo iyo dinowgu isku mid weye iyo geedka kan la yidhaahdo marahdu waa kala gooni hebel waa carado sogsogi maro sida aanay waxba ku yeelin buu sogsogta u jiiday wey oo haddaad iminka soomaali idhya miskii qaadanayso sogsogi maro ninkii calo waa iska carado sogsogi maro maro kana busho marka maxaa leeyahay asal bay leedahay wuxuu iska jiiday buu jiiday oo sida aan marahdu waxba u yeesheen waa laama yaryar xubinaya uno dabadeedna markaasubaa laga tubayaa maydhax baa laga diirayaa maydhaxdiisuna waa taa hadhub gaalka ka toranaa ee geela ku waraabsano oo weliga waxba noqonayn iyo haanta intii dhexda ahayd uu ka tegayna waa inta looga dhigaya isaga idhanka maydhaxdiina xarig baa laga soo markaasaa laisku maartay xaskusha waxaa la mida mooligaa la mida markaas intuu sida cawbaarka sare u baxo bulaama yeesha barbi waa cawbaar waa tilmaamaan uu bogtigeed waa cawbaar dinowga markaa ku sheegay ka kacaynin kolkaasa intaad korto culay buu leeyahay culay maarata haamaha maarata sabab caana macaana markaa guntiisii dhuubnayd baad doonaysa inaad 4 xaamood ama 5 ama inta uu gaadho ka samaysato hoostaad ka goynaysaa marka uu dhaco dhuux buu leeyahay weyn dhuuxaasaa ka dhex baxaya markaasuu dabad wuxuu noqonayaa haan ku toran markaasa xagga dambena looga samaynayaa gun hooyooyinka uga sameeya oo jiq laga siinaya xagga horena laguna baa loo samaynaya waana la yar xaadxaadhaya waxwey ba laga hadduu intaga biyaa gal ama oo maqor ku yeesha ko midda kaleeto geedkaas geedka haamaha laga qoraa weeye yoocada haamaha laga qoraa dhirta caynkaasi waa dhirta hadday haantu wuu yar shuuqaya una dabadeedna waa la kabaya una xayr yar baa la marinaya haantu waa iska halkeedii laakiin kuwa kale ee firdhaya waa kuwa xeedhiyaha iyo fadhaalada laga qoraa dhulka xeebta ah oo dhan iyo koorta gee markaa dhulka xeebta wuxuu ku badan yahay geedka la yado kulanka iyo garaska horta xeeb iyo buur oo dhan labadaa geed baa ka baxoo haysta iyo quud oo quudku dee meel buu ka baxaa lagu arkaa waa yar yahay dhamaada ma baxo bixidiisa gaawa gabiya bixidaas waa dhulkeena ka maranaysa ayuu kaasu ka mid yahay balse haddaad hawl u soo baxdo dee ma waayeysid geed markaa kuu qormaa oo maaragtay fadhaalka iyo waxaa laga qoro ardum aruusoban markaa dabadeed fadhaalkii iyo qundihii iyo dhurihii iyo magacyada kale lagu kordhiyay intaas waa isla wada mid walbana hadhowrka sibaa loogu samaystaa haddaba haddaanu nahay dadka nugaal iyo ka nimaan iyo faqburaale iyo hamaadina inaanaan beer lahayn qaarka iyo daraawiish buu marka dabadeed waa tii daraawiishtii nooga timi hiiraan daacunku nagaga dhacay marka caanihii iyo hilibkii iyo subagii cuneen waa tii subag ku dhacay waa tay mandheen markaas waxan waa maxay kuwii waddanka joogay waxba noqon maayaane markaas wallahi imankan madar bay doonayaan dadka karo marka waa anagii dhulka sancanay soo noqonnay markaa dabadeed geedka kan xurbinka ana markaasaanu baranado mudhuudhayay madhaadhayay majiirka miyaanad garanayne wataa dabadeed inuna waxaan naqaanataa saasaan idin tusaynaa oo wataa dabeed sidaa ugu majiiraysa dabadeed hadhuurkii markaa dabeed say u kala fiican yihin hooyooyinku taa hadhuurkeedu uu dhagax noqonayaa weeye oo hadday badar dabadeed jilicsan soo saarto dee waa taa mudhuuruqiyay laleeyahay aad ugu majiiri weydi marka hadday sidii ku wado intuu biyaa laqaa unbuu dhagax noqon lahaa dabadeed haddaad halkaa gaadhsiiso sidan ma ahaan waa ka inta dabe saa loo gooyo saa loogu garowga iyo war garowga iyo koronkorku waa laba isdhaab oo kala horeeya haddii uu isha laga tuuro wax la yidhaha koronkor oo waa ka dabadeed dadka lagu kala jaban
garowna waxaa la yidhaahdaa marka isaga baalka laga tuuro yaan la burburina ee aan la burburino ee la kawaabin kaasaana garow baa la yidhahdaa marka la jabiyana jiriidi baa la yidhaahdaa markay bislaatana budadeeda lagu daraa marka la majiinaya markaa weeye hadhulka annaga idinka naqaana gacaliyo uga aad gacaliya nagama taqaan kaase waxaa iga badiya oo keliya ninka la yidhaahdo ka tegay ceelguur iyo banaadir ka tegay maahay nin kaleeto halkaasaan kuu sheegaya wadii kaga baxay anigu dhegayso badalka sida habka loo sameeyo kulli mooleen waa laydinka badiya may anigu xeeraan leenay anigu reer bari haddaan xeero yaab leedahay reer bari waxaa jira karobutaare laakiin hadhulka waxaa la yidhaha karobutaare wuxuu leeyahay inta uu magac leedahay يعني ما تصور عقله ما قاعد يكره صوته أنا قلنا ما مالي كو ما كان شيء لكن بير toonka iyo go'ashada iyo badarka marka mid walba goonidiisa loo sameeyo ee shidka oo la isku daro ay shidiida noqdaan maleedinay goonka anu goonka go'ashada ma cuno reer magaalo nahay ma amda dayarana waa ay dayarka qoteen waa nagu ay annaga ee baadiye way wari xeerada waa xeer baadiye hala yaabin la xeerada samunada isma qalma taa waxaa la ogaaday sida aan u kala badinno halka kan marka aanu wax baadhnay baanu ogaanay qolada iyadan bariga ka timi iyo qolada nugaal ka timi iyo nin haw isagaba iska daayo calimudul gurigu ka yimi baa inaga badiya sababna maxaa waxaan ogaaday halka kan rag aroosa oo la yidhi waxaa loo samaynaya deefadu caawa cuniha kolkaas ko markaasaa la yidhi waxaa la samaynayaa qaraha kan iniinihiisa ayaa inta la maydho la saloolaya marka la saloolo ayaa dabadeedna mixdin la marinaya markaasaa go'osadiina mixdin la marinaya markaasaa caana riyaad lagu karinaya markaasaa dhir udgoonna lagu daraya goobadiiba halka loo diraya ninka arooska ahaa markaad u dabayna taa istaraya dabadeed habaykii waa inaanu seexanin dabadeed cilmiga halkaasaa laga ogaado markaasaan ogaaday inaanu anagu baadiye joognay bal adigu علي horta cali mudiir inuu beerto waa run inuu naga badiyana waa run oo meesha waa laakiin samayntiisa iyo reer magaalanimada iyo cilmiyada la soo guuriyay ama beesha laga soo guurshay ama caraabiya laga soo guurshay ama shiina laga soo guurshay inta cilmi oo reer barigu ku darayaan haddaad ogaan lahayd waa wareeri lahaydeen reer barina ma inaan reer bari hal soo daara meelaha ka joogaad aragteen ma reer bari ma arag ma arag reer bari horta waxaa la yidhaha ilbaxnimada civilizationka iyo khalqi adduunka yani contactiga international amba hindiya amba afrikaan amba carab iyo xadaarada qowday reer bariga lagula tartami maayo wixii kula tartamaa waa dhinaca zaylaxdii hore iyo waxaas waxaa haddana iyaguna xeebaha banaadir iyaguna kula tartamaayo waxayaan la isku qasin wuxuu seeyihiina loo sheego fardaha iyo geela iyo waad ka badisaan laakiin wixii ka yimid dibadda